soddonkii bishii 11aad sanadkii dhammaaday ee 2021 ayay ahayd markii wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdilaahi Suufi uu soo saaray wareegta wasiir oo ku socodsiiyay shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta ee Soomaaliland oo ku saabsanayd sidii loo maareyn lahaa fariimaha xayeysiisyada iyo ogeysiisyada xambaarsan ee shirkaduhu ay la wadaagaan bulshada taasi oo wasiirku sheegay isla markaasina uu ku taariikheeyay inay wareegtadaasi hirgeli doonto kowda bisha koowaad sanadka 2022 oo ku beegnayd maalintii shalay wareegtadani uu wasiirku xilligaasi soo saaray ee uu ku socodsiiyay shirkadaha isgaarsiinta ayaa ka koobnayd qodobadani hoos ku xusan in shirkadaha isgaarsiintu ay xaq u leeyihiin gaarsiinta iyo la socodsiinta macaamiishooda adeegyada isgaarsiineed ee iyagu ay bixiyaan oo kaliya in fariimaha isgaarsiineed ee xambaarsan xayeysiisyada iyo ogeysiisyada shirkadaha isgaarsiintu u qabanayaan cid kale ay macmiilka ku gaari karaan oo kaliya ogolaansho laga helay in fariin kasta oo macmiilku helayo isla markaasina xambaarsan xayeysiis ama ogeysiis cid kale leedahay ay lahaato qayb awood macmiilka u siinaysa inuu iska xidhi karo iskana joojin karo in lagu qaado shirkadda jabisa wareegtadani ganaaxyada uu qeexayo qodobka 37aad ee xeerka boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland xeer lambar 50/2020 haddaba intaasi kadib kulamo ay yeesheen wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdilaahi Suufi saraakiisha wasaaradda isgaarsiinta iyo sidoo kale madaxda shirkadaha isgaarsiintu waxaa si toosa kowdii bishii koowaad 2022 u dhaqan gashay wareegtadaasi lagu nidaamiyay fariimaha xayeysiisyada iyo ogeysiisyada xambaarsan ee shirkaduhu la wadaagaan bulshada sida wasaaradda isgaarsiintu ay ku baahisay barteeda internetka ee Facebook waxa kaloo wasaaraddu sheegtay in shirkadaha isgaarsiintu macaamiishooda ay la wadaagi doonaan habka ay u marayaan helidda iyo xidhidda adeegyada fariimaha Siciid Aadan Jaamac wararka on cable Hargeysa